Kani waa xaaska ma yaqaan wax naxariis ah. Muhiimadiisu waxa ay tahay inuu helo ugaar midaasoo noqoto cuntadiisa. Marnabo ma jeclo inuu noqdo xayawaan qado. Muhiimadiisana ma aan xayawaanka ma yar yahay mise waa weyn yahay. Muhiimadiisu waa inuu hela xayawaan uu cuno. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalka xiisaa leh. Yaxaas ugaarsanayo sagaaro. Sagaaradu waxay ahaa jirtay mid feejigan oo biyaha markii meeshaan ka cabayso iska fiiriso xayawaankan kale yaxaaska. Balse nasiib darro maalinkaasi oonka ayaan ka tambadiyey oo waxay iska cabayeen biyahani. Sidaas awgeed yaxaaskani fursad cajiib leh ayuu ku helay oo sagaarada ma uusan cafinin waa uu cunay oo wuxuu ka dhigtay cadcad meeshaas ayuuna nafta ku dhaafsiiyey. Cajiib, yaxaaska dhab ahaantii maahan mid u naxa xayawaanada kale bal arag siduu u galayo sagaaradani maskiinka ah. Yaxaas ugaarsanaya libaax. Dhammaantii yaxaaska muhiimadiisu waa inuu helaa wax uu cuno. Ahaaw boqorka keenta ama wax libaax ahaaw wax ka gala ma lahan. Muhiimadiisu waa inuu helaa ugaar uu cuno. Libaaxa waa la waabsaday weliba waxaa la doonayay in la cuno laakiin nasiib wanaag wuu iska caawiyey sidaas ayuuna ku badbaaday. Bal cajiib, yaxaaska ma yaqaan wax libaax la dhahay iyo boqorka keenta. Xayawaanadan waraabayaasha meesha jooga waxay rabeen inay cunaan xayawaankani doofaarka ee barkada dhex taagan, balse ma aysan ogeenin in ayaga laga horeeyo oo yaxaas oo hoostiisa joogo. Yaxaaska ayaa sidaas ku cunay doofaarka. Waraabayaashan waaba kuwa isku naxo ooba iska hilmaamo waliimada ay sugayeen oo ah doofaarka. Yaxaasku markastaba uu ka horeeyo xayawaanada kale muhiimadiisana waa wuxuu cuno. Kangaroogan waa mid biyo iska cabayo laakiin ma oga miyaa in la gaadayo yaa kaloo gaadaya yaxaaska. Muhiimadiisa ugu weyn waxay tahay inuu xayawaankani kangaroo ka dhigto cashadiisa uusan cafinin. Sidaasna ayuu xayawaanka kangarooga gacanta ugu dhigay oo barkada u soo gashtay. Sidaas ayuuna cadcad ugu jaray oona ku cunay. Yaxaas ugaarsanayo lo-kinsi. Lo-kinsigu waa mid iska cabaysa biyo oo meeshaan iska joogto. Muhiimadeeduna ay tahay in ay biyahan ay iska cabaan. Balse yaxaasku waxaasi uma quuro sababtoo ah muhiimadiisu waa inuu cunaa. Sidaas awgeed wuxuu ku soo qaadayaa weerar halis ah. Wuxuuna mid ka mid ah xayawaanadaasi kala baxayaa meesha oo wuxuu ka dhigayaa mid uu cuno ooba jab uusan ka soo raymin oo cadcad ayuu cunayaa. Wuxuuna gashanayaa barkada hoose. Sidaas ayuuna ku cunayaa. Haddana markaani yaxaaskani maanta wuxuu gaadooyaa haram cadkaani biyaha iska cabayo. Si lama filaan ayuu u soo weeraray. Sidaasna ayuu barkada u gashtay. Cadcad ayuuna cunay. Yaxaaska agtiisa ma taalo wax naxariis ah. Muhiimadiisu waa inuu helaa ugaar. Bal arag sida uu galaya haram cadka maskiinka oo isa dhahay meeshaani kaliyoon biyo kacab. Laakiin asiga ayaa loo dhameeyay oo adduunka laga saafiriyay oo waxaa laga dhigay hadda mid aan jirin oo waa la cunay. Dhammaantii waa cajiib. Yaxaaska muhiimadiisu weyn waa inuu helaa ugaar. Ma ahan xayawaankani ma weyn yahay mise waa yar yahay. Muhiimadiisu waa inuu cunaa. Kani waa yaxaaska agtiisa ma taalo wax naxariis ah. Hadduu xayawaanadii waaweynaa sida haram cadkii xayawaanada kale soo cunay kuwa yaryar xataa ma asiga maba cafiyaba. Sida xayawaankani shimbirka ah oo meesha isleysay biyo un kaliya kacab. Laakiin asiga midaasi ma yaqaana. Muhiimadiisu waa inuu wax cunaa oo quudkiisu waxaa waaye xayawaan kasta oo nool ha ahaato midka yar ama mid weynba. Muhiimadiisu waa inuu helaa xayawaan uu ka dhigto waliimadiisa uu cunaa. Ma jecla asiga inuu mar un qado. Waa inuu helaa xayawaan midkaas uu cunaa. qaybta ugu dambeysay ee muuqaalkeena waxaad ku daawan doontaa xayawaankani yaxaaska oo dameer farowga ugaarsanayo weliba cunayo. Xayawaanadani dameer farowga waa kuwa iska imaaday webigan oo kaliya muhiimadooda ay tahay inay biyahan iska cabaan. Laakiin yaxaasku waa mid ugaarsado oo cuno midna aan u cafinin. Haddaba muuqaalkani waa midkii ugu dambeeyay muuqaalkeena. Waxaana ku arkaysaa sida ay kuu muuqato sida yaxaaska uu galayo dameer farowga uusan u cafinaynin mid kastana oo cunayo. muuqaalkani halkani ayuu ku ankaa rabaa. Haddii aad ka heshay like dheh, subscribe-na ku qabo sababtoo channelka waa mid cusub, midaasna dhiirigelin ayay noo noqonaysaa. Commentigaaduna waa muhiim. mahadsanid.